Asalaamu calaykum kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadli doono xanuunka gastriga. Barnaamijka waxaa igu martiyay Dr. Cabdiruus Axmed oo ka howlgala isbitaalka weyne Hargeysa oo ah dhakhtar guud oo ah dhakhtarka xanuunada guud. Cabdiruus ugu horreyn kusoo dhawo barnaamijka waad mahadsantahay. waan dhawahay aad baad mahadsantihiin. Ugu horreyn bal waxaad warbixin naga siisaa xanuunka gastriga iyo wuxuu yahay. horta marka laga hadlo xanuunkan gastrigu waa xanuun aad iyo aad u guda ballaaran kaasoo saameeyay in ka badan 50,000 ilaa 1 milyan oo qof beryeer sanad kasta. haddaba haddaynu soo noqono xaaladda gastrida ee waddankeena. xaaladda gastriga waddankeena waxay u eg tahay xaalad masiibo ku dhow. runtiina waxaa laga yaabaa 10 qof ee meel fadhiya inay 8 ama 7 ka mid ka cabanayaan calaamadaha ama xanuunka gastriga. haddaynu soo noqono tacriifinta iyo definitionka aynu ka bixinayno gastriga, horta ereyga waxaa sidoo saxda ku yahay waa maxay waxa la yiraahdaa gastritis. waa inflammation of stomach. waa caabuq ku dhacaya heelka hoose ee leedahay calooshu kaasoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka koowaad ugu talagalay inuu noqdo meel ilaalisa protective guard weeyaan taasoo ka ilaalisa in waxyaabaha dhibaatada leh sida ICD, alcoholka, sigaarka waxyaabahaas kale inay gaaraan lakabyada hoose ee ka sii hooseeya calooshu leedahay. lakabyada ka sii hooseeya waxa ku jira kuwii dhiiga qaadayay, waxa ku jira glandiskii soo deynayay ICD-ka, waxa ku jira nerfihii. deetana waxa dhaawacmaya heelka hoose calooshu leedahay. markaas la oranaya waxa la yiraahdaa gastritis. Waa doctor maxaa kamid ah calaamadaha xanuunkan? calaamaduhu runtii waxay ku xidhan yihiin kolba darajada xanuunku uu taagan yahay. bilowga hore qofku wuxuu yeeshaa laab jeex ama laab olol, qofku wuxuu yeeshaa matag iyo yalaalugo. laakiin later on waqtigu marka uu soo socdo ama xanuunku severity sign uu keeno uu ka sii daro qofku wuxuu yeelan doonaa matag dhiig leh, qofku wuxuu yeelan doonaa laab xanuun halka sakaarka hoostiisa xanuuni doonta. waxa kale oo yeeshaa halka dhabarka labada garab dhexdooda xanuunta, naqas koo qabta. qofku waxa kale oo yeeshaa yalaalugo fara badan. kuwaasi markasta xaaladda ayay ku xidhan tahay calaamaduhu yeelan doono gastritis. Waad mahadsantahay Dr. Cabdiruus. bal waxaad wax nooga sheegtaa waxyaabaha keena xanuunkan. waxyaabaha kale keena waxaa kamid ah lifestyle modification yani sidana u noolnahay ayaa keena. waxaa kamid ah khamriga kamid ah, sigaarka kamid ah, jaadka kamid ah, cunooyinkan ku jira qasaacadaha kamid ah. waxaan ugu muhiimsan laakiin aan doonay inaan hoos ka xariijimeeyo waxa weeyaan gastrida waxaa keena oo risky factor u ah dawooyinkan dadka Soomaalidu aad ka qaataan la xanuun baabiyaha ama xanuun jabiyaha ay kamid yihiin paracetamol, ibuprofen. runtii waa group la isku raacdo non steroid anti-inflammatory drugs. dawooyinkaasi waa dawooyinkan lagula dagaalamo xumada iyo garaaca ilka xanuunka. marka inaga imika marka la eego daraasadaha ugu dambeeyay la sameeyay waxa la sheegayaa riskiga ugu badan inaga inay keenaan dawooyinka loo qaato madax xanuunka, kaarjabinta, ilkaha kuwaas oo dhan baa keena. laakiin general waxa loo kala qaybiyaa waxyaabaha ilma qabatiga la yiraahdo bacteriyada ama Helicobacter pylori iyo waxyaabaha kale lifestyle-ka ku xidhan ayaa keena inta badan xanuunka gastrida. waa tahay gastrigu ma leeyahay qaybo kala duwan? okay classification ugu dambeeya wuxuu sheegayaa gastridu inta badan waa mid ku dhacda caloosha iyo mid ku dhacda qaybta hore ee mindhicirka yar oo la yiraahdo duodenum ulcer. marka inta badan waxay kala qaybinteedu waxay ku xidhan tahay kolba locationka anatomical halkii kaga dhacdo qofka bini'aadinka. haddii caloosha kaga dhacdo iyo haddii mindhicirka qaybta hore kaga dhacdo. waa doctor bal waxaad nooga warantaa cuntooyinka qaar ka mid ah cuntooyinka qofka gastriga qaba dhibaato ku ah oo ay tahay inuu ka dheeraado. xabiiba waa su'aalaha ugu muhiimsan waa tan weeyaan. runtiina maadaama barnaamijkan yahay barnaamij wacyigelina waxaan u baahanahay in dadkeena iyo bulshadeena kala hadalno laba arrimood. waxaa jira cunooyinka qaar toos xiriir ula leh gastrida iyo qaar waxaa jira qofka xaaladda ka sii daraya oo sii kicinaya. tusaale ahaan oo kale markaynu eegno cunooyinka shiilshiilan, cunooyinka suugada leh, cunooyinka bisbaaska leh, cunooyinka muddada dheer la dhigo meel. cunooyinkaasi waa cunooyinka isla markaana saameynta weyn ku leh inay gastrida xaaladda uga sii daraan ama iyaguba xaaladda ka sii seedcaleeyaan. waxaa kaloo jira cunooyin aad u badan oo waddankeena aad looga isticmaalo oo aan inta badan
inoo ilaalinaya inay gaasridu inaga yaraato. waxaa ka mid ah cunnada baalka leh ama cunnada wadanida, cunnada aan shiilnayn, cunnada aan bisbaaska lahayn, cunnada aan in badan la kaydinin. cunnooyinkaas oo dhan waxay naga caawinayaan inaynu helno cunno caafimaad qabta. marka channel waxaan kusoo koobaynaa cunnooyinka shiilshilana bisbaaska leh, cunnooyinka suugada leh, cunnooyinkaas oo dhan waxay risk factor ugu yihiin ama ay keenaan gastrida. waa doctor xanuunkani wuxuu ku badan yahay Soomaalida waxa laga yaabaa inaad 10 qof ay meel wada joogeen 6 kamid ah ku raadaan gastri waa qaba xanuunkani wuxuu ku badan yahay Soomaalida muhiimad badan baa jirta oo arrintaa la saari karo. waxa weeyaan horta dadkeenu cabashaa jirta. cabashadu waa maxay? laabjax bay leeyihiin, laabilaac bay leeyihiin, ama waxay leeyihiin acid reflux oo gaasta waxaan la yidhaahdo acida dib ugu noqonaysa hunguriga. marka horta cabashaa jirta waayo 10 qof ee Soomaalida ee meel wada fadhiya midkoodna dhakhtar ma tegin, laakiin waxaa jirta cabasho guud. cabashada guudna waxay u baahan tahay inta dhakhtar lala tago la eego qofka haddii gastri hayso si fiican dawada loo sameeyo. haddaynu kusoo noqonno su-aashaada xabiibahay dadka Soomaalida ku badan tahay, horta definitely ma jirto wax daraasado laga sameeyey sababta Soomaalida ugu badan tahay. laakiin ilaa imika intaan dhakhtar ahaan ognahay ama dadkana soo booqda waxa weeyaan lifestyle-ka sida ay dadkeenu u nool yihiin. sida dadka u nool yihiin maxaan uga jeednaa? Soomaalida waxay tiraahdaa balaayo af lagama dhowro. waxa weeyaan balwadaha waxaa ka mid ah sigaarka, jaadka, soo jeedka, khamriga, dawooyinka la qaato, waxaasoo dhan baa ka sii daraya. waxyaabaha kale aadka muhiimka ah inaynu barnaamijkan dadkeena xasano waxaa ka mid ah habka cunnada loo cuno. habka cunnada waxaan uga jeedaa dietka noocaad cunaysid iyo xilligaad cunaysid iyo intaad cunaysid. intaas waa cilmi la barto, waa cilmi dhakhaatiirta la weydiiyo. dhakhaatiirta la dietitianka ee bartay cunnada iyo nafaqeynta ayaa lagala tashadaa, lagala hadlaa. waxaan u baahannahay in dadka cabashada intay soo dhaafaan la baaro. qofkii laga helo la daweeyo, hore u socdo. qofkii aan laga helina cabashada joojiyo oo uu danihiisa qabsado. laakiin qofkii ma shaqaysanayo, waxbarasho tegi maayo, noloshii oo dhan waxaa ka xidhay gastri waa ay haysaa. marka gastriga intaan la gaarin waxaa kaloo jira xaalado la heartburn ama laabdilaac. marka markasta waxaan u baahannahay inta cabashada laga gudbo, dhakhaatiirta loo tago, talada la qaato, wax badan nolosha laga bedelo. soo jeedkaa ka mid ah, aniga saan marar badan ku celiyo waxaa ka mid ah jaadkii, sigaarkaa ka mid ah, kookaha ka mid ah, bunkaa ka mid ah. waxaasoo dhani waa waxyaabaha ku xeeran nolosha aynu ku noolnahay. doctor aad iyo aad baad mahadsan tahay. xanuunkan ayaa wuxuu keenaa nabar caloosha ah. goorma ayuu nabarku samaysmaa? actually waxaa jira xilli uu sameeyo nabar. marka nabarka calooshana wuu ku sameeyaa, qaybta hore mindhicirkana wuu ku sameeyaa. inta badanna laba dhibaataa jirta. waxa weeyaan qofka marka lagu sheego dawada ma qaadanayo. laba, waxyaabihii loogu yidhi iska daana ma deynayo. tusaale ahaan qofka waxaa lagu yidhi dawooyinka aspiriinka, diclofenka iyo ibuprofenka iska daa, ma deynayo, qofka muddo qaadanaya. kadib arrintaas maxay keenaysaa inuu qofkii caloosha nabar ku yeesho ama mindhicirka nabar ku yeesho. arrinta kale muhiimka waxa weeyaan dawadii qofka markuu qaadanayo, markuu dareemo relief ayuu dawadii joojinaya. halkii laga doonay ilaa therapeutic dose-ka halka ugu dambeeya marka la gaaro inaan la joojino, la dhamaysto. marka mar kasta oo la dayaco xilliga la diagnose gareynayo, la baarayo gastrida ama dib u dhac ku yimaado, nabarku soo degdegaya. ama marka qofkii og yahay ee xaaladihii iyo noloshii la yidhi bedel uu bedeli waayo, markasta nabarku soo degdegaya. nabarkaasina wuxuu noqon doonaa nabarka nolosha saameyn badan ku yeelan doona. qofkii hurdo ma seexan doono, cunana ma cuni doono, ma shaqo tegi doono. marka intaana nabarkaasi gaarin waxaa loo baahan yahay in la sameeyo huge public awareness si dadka looga wacyigeliyo inay gastridu u gudbin nabar, hadhowna dhiig samaynin, hadhowna kansar samaynin, hadhowna samaynin nafaqa darro. marka waan ku dheeraaday qodobka. sababta aan ku dheeraanaya waxay tahay in dawada si fiican loo qaato. dawada si fiican haddii loo qaato qofku wuu ka gudbaya. laakiin dawadii wuu qaatay, wuu yaro ladnaaday, wuu iska daayay, maxaan la gaadhin inuu qofku bugsado. marka aad waa mahadsantahay doctor Idris. dhakhaatiirtu waxay sheegaan in shaybaadhku aanu sheegin in nabar jiro, balse tuumbadu ay sheegto in meesha nabar jiro. tuumbada lafteedu ma ku keeni kartaa qofka dhibaato caafimaad sida xagtin oo kale, maadaama tuumbadan afka qofkii laga gelin ilaa caloosha ay soo sawirayso? waa su-aal fiican weeyaan, runtiina u baahan in si fiican dadka looga jahil saaro. waxa weeyaan horta tuumbadani inta badan leh waxay soo sawiraysaa hunguriga, caloosha iyo mindhicirka qaybta hore. marka procedure-ka marka la fulinayo waxaa laga yaabaa somehow in meel yar ay sii xagato, dhiig yar ay keento, maalin kadibna uu bogsado. laakiin ilaa imika intaynu ognahay haddii si saxa loo sameeyo, dhakhtarkii saxda ahana sameeyo, xilligii saxda ahana la sameeyo,
ilaa imika ma ogin inay tuumbadaasi samayso nabar ku samaysma caloosha iyo mindhicirka qaybta hore. waa kamarad yar oo leh tube yar oo caloosha lagu dhaadhicinayo si loo soo arko wax halaaliya wixii aynu ku arki weynay shaybaarka, wax halaaliya wixii aynu ku arki weynay stool examination markaynu saxarada qof ka qaadno. marka ilaa imika hawshaasi 100% suuragal maaha. xanuunkani ma yahay mid laga bogsan karo ama mise wuxuu la mid yahay xanuunadan kale ee dadku la noolaada? su-aasha ugu badan ee dadkuna weydiiyaan waxa weeyaan 20kii sano ugu dambeysay gaasri bay haysay ilaa imikana kama dadweysmin. waxayna ku hoos jirtaa su-aasha imika aad weydiiso ah gaasrida ma laga bogsan karaa? horta runtii gaasridu sida looga bogsado xanuunada kale sida oofta looga bogsado ama looga bogsado common coldka waxyaabo kale ee looga bogsada. laakiin mushkiladu waa maxay? aniga kuu sheego waxaan ku ori bacteria samaysa. bacteriada marka la dilo kadib xanuunku meesha ka baxaya. laakiin dadkeenu qaladaadkeenu sameeyna waxaa ka mid ah bacteriadu waa la suuxinaya. qofka in yar buu yara ficnaanaya kadib dawadu wuu joojinaya. kadib dawada markuu joojiyo haddana xaaladda way soo noqonaysaa. qofka markaa wuxuu dareemaya inuu wixii ka bogsanaynin. laakiin 100% waa xanuun laga bogsado, la daweyn karo, laga hortagi karo, la hagaajin karo. arrinta kale muhiimka waxay tahay xabiibay in la ilaaliyo hygiene waa maxay? hadday noqoto personalka ama environmentka muhiimad weyn buu leeyahay gaasridu. waxa weeyaan faradhaqi baa kamid ah, cunada in si fiican loo karkariyaa kamid ah, cunada in laga yareeyo waxyaabaha acidity-ga kamid ah, in la kala fogeeyo meelaha suuliyada iyo meelaha wax lagu karinaya kamid ah. marka wax kasta waxaa ka muhiimsan ka hortagga. laakiin xanuunkani xanuun laga bogsado weeyaan 100%. dad badan oo ka bogsadana waynu haynaa, laakiin dadka aan ka bogsanin waa dadka aan si fiican u qaadanin daawada ama mar dambe la soo xiriirin ama mar dambe xilli dambe waxba laga qaban karin xaaladii yimaada. waagay cuntooyinka u fiican qofka gaasriga qaba qofku tahay inuu isticmaalo wala hada wax nooga taataabo. okay waxaa jirta waddankeena horta waxaa isku qashan shaqadii dhakhtarka iyo shaqadii dadka la yiraahdo dietitianka, dadka nafaqada bartay ee ku takhasusay. waa halkii looga baahnaa inay wax ka qabtaan bulshadana wax uga sheegaan. cunooyinka la doonayo in ay ka hortagaan ama ay xaaladda dejiyaan waxaa ka mid ah fruitkiisa waxa la yiraahdo khudaarta cagaaran. waxaa kaloo ka mid ah biyo ku filan qofku inuu qaato. waxaa kaloo ka mid ah caanaha iyo dareeraha. waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha keenaya in aynu mar kasta ka fogaano inuu calaamadu ka sii daraan ama gaasri nagu soo degdegto. waxaa kaloo xasuusinayaa waxa muhiima timeka wax la cunayo. tusaale ahaan oo kale qofku 12 saacadood kadib uu wax iska cunaya, markaa wuxuu cunana wax badan buu cunaya. marka waxaan u baahannahay inaan caloosha aad loo gaajisiinin aadna loo dhargin. waxa kaloo muhiimkii waxa weeyaan aan mar kasta bulshada u sheegana hadday qaadanayaan inay sameeyaan exercise, inay sameeyaan socod sameeyaan, jimicsi sameeyaan, xadhigga bood sameeyaan si loo saaro waxyaabihii keenayay in ay jirka ku ururto kadibna acid fara badan soo baxdo. acidina ama qofkii gubto ama nabarka kiilaha ay gubto. maxay tahay saameynta xanuunkan keeni karo haddii aan la daweyn? mushkiladihiisu runtii way badan yihiin, laakiin waxaan ka soo koobaynaa intay naga khusaysa imika maadaama barnaamij wacyigelina. horta waxaa ka mid ah gaasridu wuxuu sameeyaa nabar, ama ha noqdo bog calooleed ama nabar calooleed. nabar buu sameeyaa ulcer, kaasaa sameynaya nolosha oo dhanna qofka khalkhal gelinaya. waxyaabaha kaloo sameyn kara waxaa ka mid ah dhiigbax buu sameynayaa. qofka waxaa laga yaabaa in meesha nabarka yeelatay ay sameyso xagaldaac, perforation baa la yidhaahdaa. meesha perforation bay sameynaysaa, hadhow tolana waxay sameynaysaa rupture. waxaa kaloo ka mid ah oo imika la ogaaday inay tahay bakteeriyooyinka reerka ah ee ah cancer transformation. markii hore waxay taageen gaasri, nabar calooleed, laakiin mustaqbalka dambe waxay isku bedeli doontaa haddaan la daweynin waxay isku bedeli doontaa cancer. waxaa kaloo ay keentaa nafaqa darro. qofkii cunadii buu ka baqayaa. cunadii markuu cuno calooshii waa lagu dhegayaa, wuu matagayaa, yalaaligu leeyahay, waxaa soo qaadaya wax kulul baa laabta soo qaadaya, acid reflux la yiraahdo. marka inaga waxay nagu badani waxa weeyaan nafaqa darrada dadkeena ku samaysa. laakiin caalamka horu maraya western countrieska la yiraahdo domestic common complication ku keena waxa weeyaan waa CA transformation oo wuxuu isku bedelayaa cancer. laakiin inta badan imika inaga maxaa ah waa nabar, dhiigbax iyo kuwayaalahaas baa muhiima. aad waa mahadsantahay Dr. Idris. gabagabadii fariintaada ugu dambeysa ama taladaad siinayso qofka dadka xanuunka la nool? horta intay dhakhaatiirta kala bixisun baan bixinayaa. waxaana wanaagsan inay bulshadu u dhaga nuglaato kolba dadka cilmiga shayga u leh fariimahay bixinayaan. waxaa ka mid ah horta inaad sidaad u nooshay aad bedeshid. maxay ka mid tahay waxyaabaha ugu wanaagsan? tusaale ahaan oo kale waa soo jeeda habeenkii xilli hore seexo,
jaad baad cuntaa sigaar baad cuntaa abtaa waa inaad jaadka joojisaa sigaarka joojisaa khamriga joojisaa cunooyinka shiilshiilan iyo suugada iyo bisbaaska waxaa joojisaa exercise waa inaad samaysaa cunada waa inaad xilli fiican qaadataa waxyaabahaas waa waxyaabaha ugu fiican ee lagaga hortagi karo lagagana dheeraan karo haddaba markay timaado gastridii waa inaad xilli hore dhakhtar tagtaa isbaadhaa dawada si fiican u qaadataa lagana hortagaa markasta dawooyinkan la yidhaahdo non steroidal anti inflammatory drugska in la joojiyo ama la yareeyo inta la yareyn karayo intaasaa ugu muhiimsan aad iyo aad baad mahadsantahay Dr. Caydiruus Axmed daawadeelkaasi waxaa ahaa Caydiruus Axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala waddanka oo inoogu martiyaa barnaamijkan gaarka ah oo kaga hadlaynay gastriga muuqaalka xigeentan ku kulmayno waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh